suldaanka guud ee beelaha Arbari ayaa shalay toole lagu caleemansaaray gobolka Togdheer. Munaasabad ballaaran oo loo sameeyay caleemansarka suldaanka guud ee beelaha Arbari ayaa shalay toole ka qabsoontay tuulada Ceesho oo 10 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, taasi oo lagu caleemansaaray suldaanka guud ee beelaha Arbari Suldaan Maxamed Ismaaciil Jaamac Foolgaawe. Waxaa munaasabadan caleemansarka ee suldaanka cusub ka soo qayb galay wafdi uu ka mid ahaa wasiirka beeraha Faarax Cilmi Geedoole, wasiirka diinta iyo awqaafda Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, wasiirka xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir, agaasimaha guud ee beeraha Cabdilaahi Ismaaciil, gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye, gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar, duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade, salaadiin cuqaal ka kala yimid guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka Somaliland. Waxaa halkaasi lagu caleemansaaray isla markaana loogu caanashubay suldaanka cusub ee lagu magacaabo Suldaan Maxamed Ismaaciil Jaamac Foolgaawe. suldaankan ayaa loo soo gudbiyay dhinaca magaalada Burco, waxaana lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee magaalada Burco iyadoo ay galbinayaan baabuur iyo dadweyne aad u tiro badan. waxaana kadib suldaanka loo galbiyay dhinaca hoteelka Cigaal ee munaasabad heer sare ah loogu talagalay caleemansarkiisa lagu qabtay. munaasabadani ayaa waxaa khudbado isugu jira dardaaran iyo duco iyo taageero u soo jeediyay mas'uuliyiinta ka socday xukuumadda, salaadiin ka kala yimid gobolada Saaxil, Maroodi Jeex, Sanaag, Awdal iyo Togdheer Hawd. dhammaantoodba waxay bogaadiyeen uguna duceeyeen in Ilaahay xilkaasi culus u fududeeyo, iyagoo bulshadana ugu baaqay inay ilaashadaan isla markaasna uuna qof keligii ah wax qaban karin ay garab istaagaan. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida salaadiinta uqaasha wasiirada agaasimayaasha guud dhammaanba wax garadka halka goobta tan u fadhiya aad iyo aad baan soo dhaweynaa. waxaan leedahay soo dhawaada subxaana wa tacaala ha ka dhigo suldaankii lagu baraaro isaga allah ha ka dhigo. maxamed ismaaciil maanta sardanada isaga loo caleemansaaray Arbari kuma koobne waxay gaaraysaa Somaliland ubiga Arbari sardanada iyo reerwaa kala weyn waxaan leenahay salaadiinta Somaliland ilaahi subxaana wa tacaala ku foolaraadka ha ka dhigo. waxaan filayaa suldanaha inay nasiib badan baa tahay sababtoo ah amintii aan arkaaya caleemansar intaas oo suldaan oo 6 gobol waa 3 gobol dalku yahay 6 gobol ahaan jiray hore u ahaan jiray 6 gobol ka kooban ayaa maanta halkaa inta iskugu yimaadeen caleemansar waxaanay ku dhaadeen nasiibkaasaan wax dheerta ku dhee qaashi iyo waxgaradkii kale ee Togdheer u dhamina waa ku leeyahay halkaa ka guddoon anigoo ka wakiila kaagana sida hambaliyo suldaan ka guddoon baan ku leeyahay caleemansarka iyo hambalyada iyo moodaa guriga ka guddoon baan ku leeyahay anigoo ku hadlaya suud waxaan ku leeyahay anigoo ku hadlaya magaca salaadiintoodii caaqiladadoodii xukuumadda aan kaga idna xataa dhammaan shacabkii ka wakiila shacabkiina saaxiib waxaan ku leeyahay suldaan xilka allaha kugu arso, waxaan ku leeyahay allaha kuu gaarsiiyo taa ay kuu doonteen ummadina allaha kaa gaarsiiyo. maanta anigoo ka wakiila beesha suldaanka samaysatay ee Arbari inaan loo mahad celiyo dhammaan intaan soo tiriyey ee wasiir ilaa dhalinyaro u dhaxaysaan soo sheegay ka soo qaybgalka ay nagala qayb qaateen caleemansarka suldaanka Arbari Maxamed Ismaaciil Jaamac. aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa ka soo qaybgalka. waxaanay noqonaysaa sidii halkan hore looga sheegay suldaankii intaasi ka soo qayb gasho sidaa awgeed ilaahay baa maxamed waxaana soo koobi karin ayaan idiin soo jeedinayaa xukuumadda iyo madax dhaqameedka gaar ahaan Soomaaliya.
hadlayo waa ka soo jeeda ama ka mid ahay beesha uu ka soo jeedo suuqaanka markuu leeyahay halka ixtiraamku leeyahay xurmada ku leeyahay xurmada ay leeyihiin runtii ayagoo daa waxa ka bilaabay inuu hasan daalay sameeyay uma mana ka bilaabay markii la maqlay beeshii xabalaha maanta suuqaanka sameynaysa ma hada badi meel waxaan joogay inuu ka soo dhaqaaqo taasi waxa weeyaan gobolka labaad anigu suuqaanka tala kala siin maayo taladii horaa loo siiyey halka sandaranku waa awood waa xukunkana haddaad xukunka dowladnimada goobtiisa kale u xoogeystaa haddaad tahay qaldaar ku noqoto gabar bedelo un kaa jilca anigu suuqaanka waxaa kula talinaya horta xukunka dhaqanka iyo xukunka dowladnimada goobtiisa had iyo jeero baawar baawu iska hormar markay taasi timaadee baawarku isku tiirsado ayaa isagana sandarankiisu ay xoogeysanaysay إلهي سبحانه قولكي سيفعلكي سبحانه العدالة إلهي كبقى دفن إلهي بقلبي إياه قرآتك اليوم إلهي سبحانه سمد ركاء ورأي إلهي كبر إياه وجزاكم الله خيرا السلام عليكم سلطان محمد إسماعيل جامع وعليه هبليو صلاتيته وحبري ولدانك المعلم دولة الصومال الله وحيث سعودها وصلاتيت إذا تكستر وحدك كدعبا إنه هو الإنسان وحدك والتأخير كل من كشاي وصلاتيت وقت لماذا الصدح حتى كيما بالصدح سبحان عاجلات ربنا بدون تنسل يقرأ الحر يلعب ولا صدق ذاتك ارتدلنا وقت إلهي بيشا أربعين وهرقي وبرم وهرقونا وهرسياتك فنيا وهرقوك ساحل يقولك هو يقولك دامر يكتب يلا عمد حوي وغير مساكي سيد عمد يوي يبدأ بسونانا وعمنا سوكا كسونا وبحر سعيد كسونا وبحر نغم كسونا وبحر سعيد أنا بقول هذا بلع سعيد وحمد سعيد سونا ويا كفر حسن حي عاديات كفر حسن حي حفلة المعنى المقربين سلطان محمد إسماعيل جامع وأنيق كاسحان صاحب كي وأنا أقول إلى ذلك هنروح من اليوم إلى ذلك هنروح من اليوم إلى نشوف بناتي الله كان اليوم كل وقت هاي كتارون ويا ولا سبحانه ومنيه هاي أنا أقول كذا ترابيه هو الأول جماعة وعقبني هذه أول قليلة وكذا رسول أنا أقول عبد الله كذا أنا أقول ما أنا كذا يقول لسه يقول حرام كذا يقول هذا صعب صور حاصل هذا وهذا سويا صعب صور عاقل هذا والجمهور جلسة عندي أنا تو أيام هذه ولا يحنا سواء كان سواء من يحصل يقول ما حراسية سودان ما وقفر ما حراسية بلا قمة إذا نبضوا كي كون سكوت على أي عام نبض يهوسنا ما يقول إسماعيل جامع سلطان وأخبر الله هذا كان غير إلى علم في وهذا الراحة وضع الله ضغط يضغط على كلها ورسل إياه لو أرأيه سلطة سلطان الجود اسمه أول سلطان الجود حوالي أنه حاجة سلاح أو سلطان الجود يحول عرسه حيث أول يريسه على مسار على سلطان هو على مسار يا يزور وين يا محمد إسماعيل الجامع أبو عرب
caleemasaarka suldaanka maxamed jaamac ismaaciil faalgaawa ayaa laga dareemayay guud ahaanba degmada ay beelaha arab degaan sida hargeysa berbera balogubadle burco iyo daadmadheedh waxaana maalmihii u dambeeyey qabanqaabada caleemasaarka suldaanka ka socday gobolka togdheer waa khadar cabdirasaaq suleybaan shabakada caalamiga ee harwanaag news magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer.